كوبان waxaan oran karaa daaciga naajixa waa kii raacay anbiyada sunnadoodii al-anbiya hum ad-du'aat naajixa yawma way wadadka ilaahay u doortay subhanahu wa ta'ala inay dacwada tan xambaaraan nabi faashilina ma jiro anbiyadii ilaahay soo diro dhamay waa anbiyo wada guuleysatay haddaba maxaa markaynu dhaahno daaciga naajixa sifaadkiisu muxuu noqonayaa wuxuu bay noqonaysaa بعض صفات الأنبياء في كتاب الله إنه تلمام وحيابا إلهي سبحانه وتعالى وكتاب كيسكوسي في أنبياء داسي اللي يقع قادة الأمة يقع هقان كي نبطاها أمة مسلمين تا يقع ضدك النجاح حودة وإلهي كتاب كيسو كور رميه دور قضب ومركا أنا اسكو حدنين باردين تلمامي دونا قضبك كووادا نراك الروح ويان دعاء داسي أنبياء وحا علامة هيدي كو ضدك إني خالق ودو يريه ضدك عيد اللو يريه إنه ربها سبحانه وتعالى ملك سكويسا يمدو باقي إننا نشري سادرادد با إلهي قرآن كوحكو ليه سقو النبي محمد أمر عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله كان هو جدك لكن جدك محاوى على مضى إلهي بندتك ويري على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا جاي أنت الراعي ضيبا أنا بصيرك السجن دتك وحن ويرينا إلى الله سبحانه وتعالى إذا دتك ملك السكيسان لو حرمها قفك مسلم كي مركو دتك ويري خلافة لسوء علينا هي الدولة بعد اسمها السيد وعسوا أهداف الصغرى أصل كوحويان دتك إن لو يرى إلهي سبحانه وتعالى أنبياء وحى الله صادر وحويان دتك إن يران أدعو إلى الله ادعو إلى سبيل ربك بإلهي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله يا كور في عم بإلهي كدتك ويرى الله سبحانه وتعالى إذا وحلينا أول سمة من سمات دعاء الناجحة علامات كذا كود وحويان ضدك إلهي بيوير يا سبحانه وتعالى وحكلوا يقول واقعيا ضدك ما تشيروا شيء قال بعد أن تلمام يا وحويان أي دعاء داسلة هاي أكتوده آخرة كالدور مضميد أدونك والإثار بالآخرة على الدنيا قرآن كما كاد يكتئ لهي النبي هذا مركو كور رمي وحكوت المامي يا نبي كستولي وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وح أجر إذن ويديسن مايو نبي ولي بوح الليل وحتى هذا سدادتك كله وح أجر إذن ويديسن مايو دعوة النجاح هذا مركا وح موضة قفكو مركا وآخرة أطهي هدف كيسة وح كسك يا الرادعين يا مركا أنا يشرين مركا والدعوة دي سوارك يا أبا المركا ينو يهي آخرين يقول يستو آخرين بدبادو نار إنو كفو قادو جنة إنو حلو مركو كاي مركا النبي ولبا في سورة الشعراء مركا دخردو نبي ولبا فاتقوا الله واطيعون مركو إلى هذا محوك حكسيني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الثانية حيكو صلى سنة دولة قلي أنصاري ويوتمي يقول إلهي رسولك سبر رمية ما لتأخر با waxay yiraahdeen naraac annaga ku ilaalinayna waxaanu naftayada iyo maalkayaga iyo ehelkayaga iyo dadkayaga saanu u difaacna si lamida ayaan ku difaacina bayda ilaahay rasuulkiisa idan diintan baanu difaacina bay leeyihiin markay taa aqbaleen ayay waxay yiraahdeen anana maxaan u leenahay nabiga alayhi salaatu wasalaam muu ku oran aniga dabadayba madaxnimada qaadanaysa wasiirra noqon doonta
dawlad islaami oo lagu badhaadho oo barwaaqo badan baa heli doontaan dawladda waxaan qaban doontaa saasaa heli doonta waxa kuma odhan nimankan le naf iyo maalba waanu huraynaa wuxuu ku yidhi walakum ljanna nabigu calayhi salaatu wasalaam markay yidhaahdeen maxaanu leenahay annagu markaanu diintan u halganno ee ku ilaalino iyagoo garanaya weliba baycada markay gelayeen hay barhkood baa lahaayeen warbalukaadiya hadda carab oo dhan baa meel qura idinkaga soo wada ridi doonto waranka oo waa laydinla wada dagaalami doonaa wixii iyaga loo ballan qaaday waa maxay waa walakum ljanna idan daaciga naajixa ahi waa daaci janno raadinaya daaciga naajixa ahi waa daaci ay adduunyada kala door bidan tahay ama ka mudan tahay adduunkiisu akhridiisu ay ka mudan tahay saa awgeed diinta faafinteeda hunguri laguma dalbo xoolo laguma qaato hadday ku soo galaan waa walilaahi alxamd bale culamada badh baa waxay dhahdaan in guusha adduunka la gaadho oo dhami waa qayb ka mida qofka saalixa camalkiisiiyo loo soo horumariyey camalkaagii wax ka mida adduunka lagugu siiyey ayaa lagu tilmaamayay muxuu tilmaamayeen markii muscab ibnu cumayr uu dhintay ee uu shahaadada helay ee la waayey wax lagu kanfo ee maradiisii markaa madaxa la saarana caguhu muuqdaan markaa cagaa loo saarana madaxu muuqdo saxaabigii ka warramay wuxuu lahaa dee iyagu waxay ahaayeen dad waxoodii oo dhan ilaahay aakhiro oo ugu dibdhigay muu soo gaadhin guushii muslimiinta ee dambe iyo saxaabadii dambe milyaneeray noqdeen khanaa'im baa la helay xoolaa la helay alf markaad kutubta akhrido dhaxalku ka tegay hebelya dhaxalku ka tegay waa millionaires alf waa milyanka waayo af carabiga alf wax ka badani kuma jirin tirada ay carabtu taqaano saa daraaddeed alf iyo alf laystaba dhigaa unbuu ahaan jiray milyaneerkani waa erayadan cusub ee inagu soo baxay milyan iyo bilyank iyo kuwa kale af carabigii hore kuma jiro saxaabadii dambe milyaneeray noqdeen laakiin asalku kaa ma ahayn asalku wuxuu ahaa walakum ljanna sida awgeed ambiyadu aakhiray ka door bidayeen adduunka ilaahayna qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wixii dadka oo dhan lagula dardaarmaya inay tahay bal tu'hiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayru waabqa ina hada lafi الsuxufi اluulaa suxufi ibraahiima wa muusa taas baa ilaahay yidhi aakhire laga doorbido adduunka oo aakhiro dadka loo jiheeyo ayaa wixii lafi suxufi luula ahaa suxufi ibraahim oo muuse nebiyadii horena wixii loo sheegay kaasoo ahaa idan ayuha alxiba daaciga naajixi waa ka miqyaaskiisu yahay waxaan maxana ajar ka helaya waa ka miqyaaskiisu yahay ilaahay raalli ma iga noqonaya imka maqaayiis badan baa soo baxda oo cusub oo dadku inta uu dheef helayo maadiya ayuu ku xisaabtamaa dadku intuu dheef maadiya helayo ayuu ku xisaabtamaa waxaana laga yaabaa hadday aad dheefta maadigii noqoto waxa uu qof ku xisaabtamayo ama se dadka aad diinta ugu yeedhaysa ay u arkaan inay shaqo kuu tahay warkaagu dhegta xoogu geli maayo waydi nin xoogsanayaa lagu arkaa ninka xoogsanaya waa nin xoogsanayo soo maaha wuxuu doonayaa ka xoogsanayay haddii loo arko diinta aad sheegaysaa in waxa ka dambeeya uu yahay xoogsi imaam baad too mushahar baad ku qaadataa macallin qur-aan baad too mushahar baad qaadataa macallin jaamacadeed baad too mushahar baad hadday dadku suuraddaa u arkaan dee waxay arkayaan nin shaqooyinka ka mida la qabanaya kama warramayno dee dadku ileen lama odhanayo baktinaya haddii aan cidiba wax siinaynin haddaanu baytimaalba jirin haddaan laakiin waxaa ka qurux badan qofka arsaaqdiisa inuu meel kale ka helayo diintiisana uu seeda u faafinayo taasaa waxay dadka dhagahooda ka geli og tahay markay u arkaan in aad luqmadaadu ku xidhan tahay walidalik baa nebi waliba wuxuu dadka alla lahaa beri ka noqo inaad waxba ka rabin ila marka la leeyahay qul dheh ilaahay markuu nebiga ku yidhaahdo wamaa as'alukum calayhi min ajrin kudha marka la yidhaahdo
macnaheedu waxa weeyaan beri ka noqo oo dadka fahamsii waxba inaad adigu ka rabin waxooda adduunkooda inaad rabin madaxnimadooda inaad rabin waxay dadku doonayaan oo dhan inaad ka doonin hadday dadku ku arkaan nin siyaasi iyo kursi ku socda inaad tahay diintan aad waddo inaad kursiga ku doonayso dee waxay ka agtooda aad la mid tahay kan kale ee siyaasigeeda isna kursiga raadinayo isagu keeba xaq ku taagan iyo baabkaa ninkan eegi maayo ee wuxuu ka dhex arkaa xuduuda nafsi inay meesha ku jirto xagga nafsi iyo dadku raadcaynaya inay meesha ku jirto idan waxaan leenahay dacwatu alambiyaa waxay caan ku ahayd inay aakhiro doorbidayso dacwaadka muslimiinta dambe wadaana intay dar alle wadeenna xoog bay u socotaa markay xuduuda nafsigii soo gashana waaba la isku qabqabsadaa una murankaa bato una way dabacdaa markaanay xadka nafsiga lahayn bay ka xoog badan tahay marka ay leedahay الحدود النفسية قضى في الصدحان تلمام يا وحويا سمات الدعوة الأنبياء لهيب والالتزام أو القدوة الحسنة انت ريدتك وحوشي قموح يوك مغنجري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يو أنت لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا waxay ahaayeen dad في الصدق في التقوى في العفو في الحلم في الرحمة في الرفق يعني waxaan aynu ku baaqayna dad iyaga ka muuqda dad dulqaad badan oo cafis badan ma u malaynaysa midkeen in lagu yidhi intii ambiyada lagu yidhi intaynu qur-aanka ka akhrino qura ساحر أو مجنون كذاب مفتر وحا قرآنك كقران النبي اللي يقول متكين اللي يقول ما هو ملاينس بس هذه إيش اللي يقول يرقب واسعون عنا دو ودات كالك هاي راح الله هبينك قمي ميسي دائما متكفق يروكا حفله يعني وحلوبة هاي وحويا قدوة حسن كاي أما قدوة أنه كور رمينا من التزام كان أنه كور رمينا waxaan aynu dadka ugu yeedhaynaa daaciga naajix waa ka isaga ka muuqato walidaalika baa ambiyadu iyagoo dhiigu ka da-ayay dadka u ducaynayay allahuma akfir liqawmi fainahum laa yaclamuuna xadiistaa garanaysaa goortu xadiidkan leeya waa goorma waa goor nabarku ku yaallo adigoo halkaas ka maraya haddaad tidhaha allahuma akfir liqawmi fainahum qawmun laa yaclamuun dee dhibkuguma hayso laakiin marka lagu tumo ma odhanaysaa su-aashu waa taa إلا هذا سكان نبض قبوها الكاتوبة هذا تلك ودعيس ودب معها مشاكل لدرين الميس لكن مركا يكتما أما كيكو وحيه وكو قراعه أما وكو عابايه أما وحكاشه مئات سعون عنيسا نسوى حد هذا اللهم اغفر لقومي وهدولا وحقرانين إذن أنبياء وحي هاي وحن أيدتك ويريان وحن أيدتك ويريان أي وحي كوهاي القدوة حسنة تاسا waxay keensanaysay in la rumaysto waxaan inay dhab ka tahay inaan idan kala ahay soo marka hore ma inaan dhan aakhira ku xoog badnay marka labaadna wixii markuu isaga ka muuqdo waxay arkayaan inuu ficilkoodu dhab ka yahay marka saadiqiin bay ahaayeen sidqa kullu ilaahayna uu run sheega khalqigana uu run sheega dad cabsida ilaahay ka muuqata bay ahaayeen dad naxariista iyo rifqiga ahlu sunna waxay yiraahdaan wuxuu caan ku ahaa waa arhamu khalqi illaahi li khalqi illaahi bay ahaayeen bay yiraahdaan halka ay tawaa'ifta kale lagu tuhmayay inay ahaayeen dad dadka dhiba oo ama laaya ama mashaakil u geysta ama kan u geysta tawaa'ifta ahlu sunna waxay ku caan baxday waa ka inay ahaayeen dad naxariista iyo rifqiga ku caana oo umamkoo dham iyaga hoostooda ku nool yihiin طوائف تكلل لقوم هو سنة ولا أجري حتى ما أنت طوائف تيرير كريستن كسوهر لي وكوي عالم الإسلام نوجوبي وحكدم به ووحي صاب حي بروتستن كجداشي معارضين تقولدي لو نجري قرية تضبيط بنادي وحي كدم به ملاس وحي صاب حي أما طوائف النصارى القديمة وإنت عالم الإسلام شوكته طوائف اليهود القديمة وكوي عالم الإسلام جوي وهي يجا هددت كون حريصة
dad lagu dhex noolaan karo iyagoo laga mabda' gadisan yahay muslimka aan ku aha ama catholic bay ahaayeen iyo orthodox labaduba wixii aan iyaga ahayn way gumaadi jireen way xaaqi jireen idan waxaan leenahay dacwadii ambiyadu waxay caanka ku ahayd sidqi iyo taqwa xilmi iyo cafwi rifqi iyo raxma iyo wixii la mid ah walidalik baa ilaahay wuxuuna leeyahay ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waa aayaadaynu akhrino laakiin ficlan xaqiiqadaa ma dhadhaminaa nolosheenna ma ka mid tahay waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun maxaa ugu dhawaaqaysaa waxaydan idinba yeelaynin ama samaynaynin ayuha alaxiba dee raggani waa raggii jaamacaadkaan malinaya waa un idin korka xaadinaya laakiin waxbaan idin xasuusinaya daaciga naajixa waxaa lagu yaqaano waxaa ka mid ah baynu leenahay haddaynu nidhi adduun ma aha waxaad u baahan tahay waxaa lagu yaqaano waxa weeyaan zaad badan inuu sito daaciga zaadkiisu waa maxay sahay badan safarku wuu dheeryahay waa mashaqa sahay baad u baahan tahay daaciga naajixa ay sahaydan waa kii wata ilaahay nebigiisa markuu dirayay muxuu ku yidhi yaa ayuha almudathiru qum faandir war kan isdadayow baa la yidhi kaas duuduubayow kac oo dig laakiin waxaa loogu xigsiya warabbaka fakabir wahiyaabaka fatahir waalrujsa fahjur walaa tamnun tastakthir walirabbika fasbir kulla hadihi alaayaat waxay tilmaamayaan zaad qaado wixii uu zaadka ka dhigan lahaa yaa ayuha almuzammilu qum illeyla ilaa qaliila نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا والعلس بالغوبي بيابالي لكن محل به الرئيسي وركا علس نك الربين وقاضى زاد كان وين وطا نبي موسى نبي هارون محل قولي فرعون قبطة إنه طغى إلهي بوشا جاين وقوقي فرعون ونين إلهي قوقيسة المامي فرعون كان قوقي وطقبالي ومحل زاد الله قدر ولا تنيا في ذكري بإلهي ولا تنيا في ذكري أنا يحسك يقول هكذا لنا بإلهي إنني أسمع وأرى زاد قوة واقع مراقبة الله وذكري إنه الدرامة إلهي سبحانه وتعالى إنه مقلي أركيه إيه إنه حديد كل لي الله سبحانه وتعالى إنه بطل هذا هو الزاد زاد كاسي هدوك ويا راضى وحكى لا ديدي تعود العقبة وبانت النبي محمد العقبة وتنبي شيل ما يسمى سؤال كان ما تعرف أخو بوضع صورة هل يبان دعوة العقبة وبانت دعوة كبا وبانت دعوة كبا ودعوة الددي من لا وبانت إلهي حسك سكو بدي أبدا الدد آخر ربع يسمى وبانت وآخر قويتها أدونك قيمة وينان وأكتو ذا قرهاي كوا هذا شيء صعانيسا أما هذا النقطة بروجكت هي مشروع الله هذا مشروع كان يوحوا بهاي أنت أصلا قالوا بهاي تسو هاي أدبوا بهاي تسو كانوا بهاي وهسك مشاريع الدنيوية كهامركا إلهي سبحانه وتعالى بيدي سمو أورنين نقالا من سينيا نقالها قاطو تقوى الراعي لما أورنين دولة لما الذين بيا دولة لما قاطو ذاتك سندولية وحلوين زاد كي نواقع زاد مرة فتاة إلهي كحبه زاد كينو وإلهي كحبه زاد كان رسمي قاعد وكان أدونك بلبل كيسو واسكا متاع الدنيا ووحي لغا يابا هدوك سوق لنا إنه مرة كقاركود وحقوف فضيلية مرة كقاركود إنه فتنة كوكو نقضبا يابا هندنوي قايل لا بضبا وين نقضا إنه فتنة كوكو نقضانا والله أركا إنه نلاش بركو فضيلية أنا وارجع كتر أما الذات كان رسمي قال له هو إنه وحتري أي حقوه وحكتري تاني يتضبب وهو وحتركيه آخر الله صعده وحكى له وحتركيه هي أدوك إنه شغله مركا وحلنا داعية ناجحة وكذات كيس جرنية أن مالك لك أم بنين حوله مجا ذات كل الرادين ذات كيس جرنية صفاتك
daaciga naajixa lagu yaqaano waxaa ka mida bay yidhaahdaan xubu lkhayri linnaasi watafani fi lmabda waa qof dadka khayrka la jecel casrigan dambe waxaaba iska badan dadku inay kufaan jecel markuu hebel karaarka weeyarto farxayo le kii uu hebel ahaana maantu ka dhacay halkaad ka muslimka ka gaalka intuu soo islaamo farxi lahayd muslimka si wanaagsanaada farxi lahayd inaad ku faraxdo muslimka kufa ama muslimka dhibi gaadho waa mashaakil cusub asalku waxa weeyaan xubu lkhayri linnaas dadka inaad khayrka la jeclaato iyo watafani fi lmabda mabda'aaga inaad ku milantid ku dhammaatid culamaa suufiya maxay odhan jireen alfanaau fi llah kutubu suufiya ma akhrida qofka waxaynu ka rabnaa alfanaau fi lmabda fi lislaam diintiisa inuu noqdo qof ku dhamma laba qisaan idin tilmaamaya wada taqaaniin qisada nebi yuusuf waa la soo dulmiyey walaaladii baa dulmiyey dulmigaasi addoonsi buu keenay gabadh baa sii dulmiday boqor baa sii dulmiyey xabsaa la geeyey xabsigii sanawaad buu ku jiray qof caadiya haddaynu qiimayno waxaynu odhan lahay qofkaas waa qof ciil u dhammaaday qof nolosha intuu soo socdo o dhan la dhibayay waa qofka caadiga ee bini aadamka waxaynu odhan lahay ciil halkii u dambaysuu taagan yihi waa qof aada odhan karto malaa hadduu aargoosan karo si unbuu u aargoosan lahaa isagoo sidaasay u yimaadeen kuwii wax u geystay way weliba hortiisa ku caayayeen in yasriq faqad saraqa akhun lah kuwa uu iska cafiyey waxaa laga yaabaa kuwa inaad tidhaahdo waa walaaladiiyo dee ilmo nebina way ahaayeen oo dad muslim oo iska cafiyey gaaladii xidhatay muxuu ka yeelay kuwa igaba daayo gaaladii xidhatay oo baahan baa u timi oo riyo wadata boqorkiioo le riyadaha lasoo fasiro kii ilaabay waa kii riyada la soo cararay iyo yidhi aanan garanayaan markuu badhaana ku jiray muu xasuusnay laakiin boqorku markuu sheegu garta waa la soo cararo yuusuf uu la yimi yuusuf cilmu ru'a ilaahay baa baray wuxuu gartay 15 sano caynkaasi inay soo socdaan wuxuu gartay haddaan khitadkaasi la degin in la baaba'ayo ma isidhi wargaala waa kuwii ku dhibay hama dhaane hadda u aamu haddaba intaasoo qura waxbaba ha u geysan iska aamu war iga tago ordoo waxba idin fasiri maayo maxaa dhici lahaa hadduu waxba fasiri waayo de waxaynu sawiraynaa in abaartu dadka gam ka siin lahayd dad iyo xoolaba inaan waxba noolaado laakiin muu odhanine wuxuu tijaabiyey ummaddaasi sidii ay u badbaadi lahayd وحب الخير للناس وتجابيه ددكاس سيدي ay u badbaadi lahaayeen iyagoo gaala ah rasuul sheegay 7 sano caynka yeela wixii aan beerataa qaabka u kaydiya wixii aan cunaysaa ka goosta waxa kale sumbuladiisa u daaya saa u kaydiya 7 sano abaara ku xigi doona 7 abaartee dambe ayaa cuni doontaan kadibna سند برواقا بيدكم حيجي دونا إذا ما خير الدد جعلي قصة اللي بعدها أنت المام هو مؤمن سورة ياسين قال صدح رسول لقد يدي بيجي وأول بصاع الرسالة هيك والرمي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى نكاس حلكو دريمية وحل ديميد هي آخره مو يشعرني ورسدح نبال الديدات وحاجات صعطة هذا مال صدح رسول لقد ديدي ما دعوة كشيء ما ورا الله سواء حلو نساء وعثمان باتشو كم قال دعوة وصعطة صحيح ما صدح رسول ما لقد ديدي يقول دبل تنوح لي هاي وردين تقاطع والراحة وعين كان يالا وكان يالا ويدي لين السجينة إلهي وحي نوغا والرمي مركو لنطي آخرت بيسيدو فكري إذكا سوى الرمي كانت ما شرتها لم وياه
إلهي بابا كور رمى يا مركي اللي كان الإنتهاء آخرات الطريق سيدي وفكري يا ليت قومي علي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ألا تشعلان لها يبولي تلكي إن يقرطان وحال أن معي سياعين كانوا أيدا إسلامان بنقو أيو ورور قال كي دلي بوحو وروريا إلهي يا فهم سيا وحنون معاه ويجونا إسلام لهاي إنك داعي لكم ما ينقو بدنا ملا وحن نوران لهاي قد كان لي ذكوا عذاب إف كان لي ذكوا عذاب صورة ما يصاب يعني وحوف فكرة يسوي صور لنطي كاسو خير كلا تعالى إذا قفك الداعي مخلص كان وقفك سيدك كلا تعالى محي خير كلا تعالى قضبك اللي حالا تلمامي يا وحوية صفات الداعي الرسمي أنبياء أسكو الصفات بيسي والعلم والإخلاص أقول هي داعت أقول توحي ترتاه لابا الشيء أوران كرابا markaynu ka nimaadno cibaadadaada iyo diinkaaga iyo waxaa gidayna kuugu asaxayso iyadu dee mabdi aad ku dhawaaqaysaya laakiin min baabi dacwa baynu ka warramaynaa waxay ku korto waxaa ka mid ah fiqatu nnaasi bik dadku inay kalsooni ku qabaan waxaanaad sheegayso waxaa laga yaabaa adigu inaad kelmad xaqa sheegto laakiin cidi baanay dhegaysanin isla intii aad tiri sheekh Cismaan Cali Xuseen hadduu yidhaahda in la qaato maxaa u dhexeeya sheekh Cismaanna sheekhnimay ka rumaysay adna sheekh baana ku rumaysanay idan waa fiqatu nnaas kalsoonida maxaa beeray aqoontaa beerta dadku qofku markuu noqdo dadku inay ku kalsoon yihiin warkiisa way dhegaysanayaan laakiin marka aanay kugu kalsoonayn wiil yaroo ku buuqayo uma ku arkaya ولذلك يا معلنا أقوانت واحد ترتاه وردادو إني كالسوني دادكو كوكا بكران واحد كالو ترتاه دينا دادونا أولويات كقران كرتو دادك محاضوها الرئيسين كرتا كردالن يردي مرقو دادك بدينتا وحنباري بيسرها وضا قاداني مرقو قرما وضا قادي كريا إذا واحد كبريسا أقوانت الرسمي قاعد محاك له الرئيسين محو بحيين أدمانتا وشيكو حسه وبهينا بريو شكت maxaa ku sugi kara maxaan ku sugi karayna muxuu yahay qofkan bukaankiisu ninka dhakhtarka ah dhakhtarku ka cilmi badan yahay doonana waayo waxaan leenahay wuxuu fahmi karaa dawadu soo dhaweyn karaa laakiin ka kale waxa laga yaabaa inuu dhowr tijaabo ku galiyo balki ninkan soo cunaad ku soo noqoto oo haddana ka bedelo mid kale ku qoraad ku soo noqoto لكن هذا كالسوري بدن كو قبطه waxa laga yaabaa inaad tiraahdo koowaad uu ku siiyay inaad ku bogsato idan aqoontu markay si fiican ku raasukhdo waxay keensanaysaa inaad garan karto qofka dawooyinka loo horeysiinayo kuwait ikhlaaskuna waxa uu amalku midha ka dhaliya ikhlaasku amalku maxay midha ka dhaliya خلاص بركة رصاد ضدنا وحوية وحنا إله درتي أدو قبطه وحنا مركب قبنا يسوع أنا تكون حسابت من حدود النفس أما أنا نفط أدو نفك ويا لني صاليان قابنا كسيو تتك قلوب تودو إلهي قاعد تسيكو شرته إلهي بعيد هداية الله ربه هنونني aduu ma kala garanaysid adiga waxa haboon ku saarin wax weeyaan amalkaaga inaad mukhlis ka tahay waxa laga yaabaa adigu waxaad hadda yaraysanaysaa inuu yahay waxa rasmiga ilaahay midha ka dhalinayo wiil yaraada quraan isaga dhigtay aduu weerar yaro muslimiin quraanka u dhigaysaa waxa laga yaabaa ka gacantiisa in ilaahay dunida ku bedelo waxa dhici karta kaasi ku u dhigay ku sii dhigay ku awooga shanaad ugu yahay إلهي قاعد تشكو بدله هذا أدو قوسطه وردو قرطه وحدالان يا المؤمن قرطه وحفاف يا الجرلس ما ها حل قاد نوع شيء وحفافا
shaafici ninkii quraanka u dhigay muxuu salahaabad u malaynaysa imaam shaafici ninkii quraanka u dhigay ama qalinka u toosinay ama kutubtii bilowga ahaa u bilaabo dee inaan yaroo muslim oo wuxuu dhigay buu arkay saaka ma laakiin waxa laga yaabaa inuu kaasi ajarkiisii dhuranayo ilaa maantada tan bukhaarikii wuxuu dhigay maxaad u malaynaysaa inaan yaroo muslim buu ahaa bukhaari oo u yimi isagu bukhaari noqon doona isma lahayn laakiin waxaan dareemaynaa inay dadkaasi malaa mukhlisiin ka ahaayeen wixii ay dhigayeen ilaahay baa markaa midhahan ka dhaliyay adigu markaa dacwadaada ha ku xisaabtamin soomaalidu waxay yidhahdaan binaadamku waa indha ku garaadna intan ku hortaagan ha ku xisaabtamin hayse odhanin wadna maxaa soo baxay war waxa soo baxay aad u garan maysa waxaa laga yaabaa kunkaa qof ee waxaad u dhigtay hal qof oo yar inuu kaaga faa'iido bato adiga adduunya aakhirada hal mida oo ilaahay subxaanahu wa tacaala shaafici kale ka dhigo ama imaam kale ka dhiga inuu kaaga fadli bato kunkii qof aad wuxu dhigaysay kaloo dhan inta kale inay cilmigoodu iyaga la dhinteen una la baaba'een waxba raadba ka haray waxaan leenahay markaa camalkuna shaygaa uu macno u yeelaya ikhlaaskuna waa camalku muthmir ka dhiga waa waxa midhaha ka dhalinaya camalka aad qabanayso ilaahayna wuxuu ina leeyahay war marnaba ha quusanina camal sameeya waqul icmaluu fasayara allahu camalakum ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إلهي يا رسول كيسي مؤمن كبوا يا أركبا إلهي والمؤمنون أما كو تشوغان نقدان أما كو صوص عدان نقدان إلهي يا رسول كيسي مؤمنون تبوا يا أركبا لدوها عمل شغين إنسان إلهي عالم الغيب والشهادة أنا واضن نقن waxaad samaysatana wuu kaaga warrami baa ilaahay fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun waktigii lay qabtay waa iska dhow yaan filaya waxaan ku gabagabaynayaa qadiyad farsamo ah oo ku saabsan casri waliba wuu isbedelaa waxaa laga yaabaa wasaa'ishu tawqiifi maaha inta badan وصائش ووحش بدله وهي بنادم كنولوشي سوي تطورتا ما يلقوا متاجنا سيد رادد وحاهبون إذن هنا إنا برطان الوسائل الحديثة ابن آدم كالله قنعيه أما وحلوه الشيغو أما وحلوه النعليه وحوى لبا وفن فنكو ما هذا كان سومالدو أي شيخته هستا كما ورمي كلمة الفن في اللغة العربية فنك على واحد تكنيك وباها مثلا الطباخ هو فن صحيح كما قيادة السيارة هو فن أو على برطو كورنا هذا عندنا فريستو إلى هذا بريسك سكون حكرس كا بريس يبصل يهيل يتباندو انت صار الصدر انت هذا صدر تمام بلين سيرون سكن حكرس محان سو بخاي مش خطو باهي قورما لغساسيلا قورما لو شبا قورما امس دقيقه دود بالود يا قورما بسس لو درا قورما هيلب كلو وفني كور غادغا دا غودا غادغو ثيوري كودغو ثيوري دا ميلا كودغو علامadaha sawdooyinka ku yaalin saasa loo kaxeeya gaariga marka fooshe koowan geerka wanka la geeyo geerkow baa la galiya kileeshka laga soo yaran dhaqaaqa saliida la siiya saadara walba ku noqonaysa waad u malaynaysaa hadii gaari lagu dhigo yani wax kasta waxay u baahan yihiin marka tadriib idan marka culumtiina dhamaysataan tadriibka naga inaad farsamo barato binaadamka saa loola hadlo dadka waaweyn dadka yaryar markaad war caadiya sheegayso markaad khudbad jimca sheegayso marka aad daris caadiya akhriyayso marka aad qof fardiya iskala hadlayso u sheekaynayso waxa laga yaabaa mid waliba inay kale ka gedisantahay markaad muxaadara akhriyayso wax waliba inay waxa kale ka gedisan yihiin baa laga yaabaa ka hor haddaad intaad caamo is hortaagto tiraahdo waan wacdinayaa
dabeetana muqaddamada ka bilowdo kelimadan iyo luqada carabeed waxay ku tahay qawaamistu waxay dhigtay amada maxay ka garan doontaa yani waxa laga yaabaa inaad akademiga sidii ahayd jaamacadda waxa looga dhigi jiray inaad u wado laakiin daa caamo marka la hadlayo halkaa lagama bilaabo idan wax waliba waa fan u baahan inaad tadriibkiisa baratee mar haddaa camal ka rabtaan inaad qabataan تدريبات كي سنقاطع صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير بارك الله آلة الموبايل كلا يراها ودتك إمك وقت بدن كقاعدة وحنا لقى يا كتاب القرآن كهالكيسي كشيء شاف محات لك سوت شيء اللي كنا رأي كستيهين دعاء بدنيه لكن هذا أنا دعاء لفته عادي أذوقها يعني إن شاء الله سأشاتي كنصيحة إن شاء الله عصر ولبد فتن كيسي امتحان كيسا قارب وطا نعمة ولبنا نقصان تيلي وطا بحل كاني أما نرش أن ينادل كجرنا ونعمة بضن واندت كدلين قال له يقوى حنخني مقال الضري نقول له لنشري الدكتور مصطفى محمود مصري لها الله نحن استجنتي wuxuu yidhi dadku nicmada ay maanta haystaan boqorradii hore may haysanin buu yidhi kaasuu ka warramay fircoon iyo kisra iyo maxaa la yidhaahdaa kii romaniska qaysarkii romani wuxuu yidhi fircoon hadduu safrayo carabo yarun baa lagu jeedi jiray bahalladan gaadhi ximarrada iyo farduhu kaxeeyaan adiguna sayaarad baad ka buuxinaysaa buu yidhi markaa safarkii fircoon kaagaa ka nicmo badan buu yidhi boqorkii faransiiska buu yidhi hal dabaaqoo faransiisa ayaa wuxuu karin jiray oo la odhan jiray waa farsamo yaqaan adigana waxaa laga yaabaa gurigaa degantay hoostiisa 10 model oo midna Chinese iyo midna Faransiis iyo midna Kenyan ka doonto inaad wax ka cunto 100 dabaaqo kala nooc ah inay wax ku karin karaan idan boqorkii faransiis buu yidhi waxa ka cunna fiican ninka maanta shiligiisa iska iibsanaya u dhalada helay wuu soo waday wuxuu yidhi kisrihii bershiya shamac iyo qanaadiil baa loo shidi jiray buu yidhi adna badhan yar unbaaba taabanaysaa la yidhaah unbaa wacda ku haya gurigaagaa ka dhalaal badan marka la eega buu yidhi romaniska qaysarkii ka talin jiray marawaxad yar baa lala hor fadhiisan jiray oo lagu bambin jiray buu yidhi oo loo arkayay yacni nin raaxaysto 4 nin dhabarkiisa bahal yar ka bambinayaan adigana buu yidhi badhan yar intaad taabataan baa mukayaf iska buuxaya iyagoo markaa wuxuu tilmaamay dadkan qanaacadii baa ka luntay iyagaa boqorraa buu yidhi abaatiradii hore iyagaa ka nolol fiican laakiin isagaa rumaysan inuu faqiir yahay oo aan waxba haysanin adduunkana dee lacagtu kuma raacdo dadka waa intaan un laga cuno lagaga raaxaysto marka wuxuu leeyahay intaa haysa qaab baa ka qiimo badan intay boqorradaasi haysteen laakiin waa la qancay waxaan uga dan leeyahay technology-gan oo dhami dee waxa dadkii hore haysteen maaha fawaa'id badan buu leeyahay laakiin dadku hadday sida xun u isticmaalaanna waa mahlaka horta ma ogtihiin injineerada kuwa ugu lacagta badan leh dunida inay ka mid yihiin kuwan la yidhaahdo attention engineerska ma taqaane waxay yidhahdaan waa injineerada maanka dadka soo jeediya attention engineersku waa nimankan design gareeya Facebook iyo YouTube iyo waxaana gashaan haddaad gasho sidii aanad uga bixi lahayn buu ninkani mas-uulka yihi haddaad furto sidii aanad dib ugu noqoteen ee meeliba meelay kuugu dhiibi lahayd ee uu maanta oo dhan ku wadi lahaa waa khabiir takhasuskiisu intaa yahay lacagaa ugu badanna kaasoo ku qaataa kuwaasi qaar ka mida iyaga gurigoodu internetna male tvna male moobile ma yaallo waayo wuxuu ogyahay beladuu dhigay saa daraaddeed wuxuu ogyahay hadduu soo gasho isna kiisu inuu jabayo walidaalika buu gurigooda gurigiisa ka ilaaliyey inay wax kani soo galaan waxaan uga dan leeyahay dee rag baa malaayiin dollar ku qaata bahalkaa markaa furtaan inaydan dib u noqonin oo aad maantao dhan un ku dhex jirto xag iyo xagga u socotidu soomaaliduna awalba
dad iyagoo wax akhriya kumay jirin iska oral society baa ahayn dadka hadle ee wax daawada halkan Soomaalida dhib badan buu geystay marka umuuman dee waa laga yaabaa rag iga khabirsan in la helo waxaan idinka warramee laakiin waxaan idin lahaa war intaa iska yareyn kartaan iska yareey inaad dan leeday mooyaane ha iska daawanina dan inaad leedahay oo wax aad adigu baadhanayso u socoto inaad leedahay mooyaane intaad un soo rogto markaad meel yara fadhiisataba ha furin dadku waxay u badan yihiin markuu meel yara fadhiisto halkuu subxaanallah ka odhan lahaa buu ka furaya dabeetana markuu bilaabana soo noqon maayo ilaan waa nin baad sakaarada xayawaanka markaad dabanayo soo laacaya looma dhigo waxaan yare hore aad aragtay waa laaci kadibna dabinka haddaad gasho dib soo noqon maysid